caawa waxaan dhihi karaa waa laxda taariikhiya marka laga hadlayo maxaan ku rahdaa taariikhda waxbarashada ee Soomaaliya. marxaladda maanta caawa aan u dabaaldegayno aan ku sharfayno ardadeena qiimaha badan waa system soo bilowday muddo hadda laga joogo 30 sano wax ka badan. haddii aan u gudbo marka ardada caawa halkan fadhida oo loo xafladeynayo tirakoob ahaan markaan u sheego inta kala jibisay waxaan dhihi karnaa waxay iskugu jiraan arday master, arday PhD iyo arday maxaan ku raahdaa diploma sare. haddii tirakoobka si kooban aan u sheego masterka ardada halkaa fadhida oo qalinka bedelanaysa waxay gaarayaan tiradooda 133 arday, 8 kamid 8 waa diploma sare, 8 waa PhD. gabdhahana waxay ka yihiin 30%. waxaan rajaynaynaa mustaqbalkana inta ka badan in tiradooda insha Allah kor loo qaado. intaa kadib anoo hadalka soo koobaya takhasusaadka ee ardadani caawa ee qalinka u bedesheen waxaa ka mid ah education, international relations, political science, public health, health management, English language, history and civilization, applied statistics, private and public law, usul al-fiqh, economic policy and planning, social work, GIS, MBA, ICT and environmental study. waxaad dareemaysaa marka takhasusaad aad u fara badan oo dalkeena u baahan yahay. ardada halkan fadhida marka waxay iskugu jiraan arday Soomaaliyeed iyo arday maxaan ku raahdo ajnabi ah. taa marka waxay reflection u tahay in barnaamijkan uu yahay barnaamij aad u najaxay. waxaadna ogtihiin sanadii aan soo dhaafnay ilaa ay hadda ardadeena waxay iskugu jiraan ajnabi iyo maxaan ku raahdaa Soomaali. waxay kaloo macallimiintana sidoo kale waxay iskugu jiraan ajnabi iyo Soomaali. qalin jibintana waxaad arkaysaan halkaan caawinaad arki doontiin waxay iskugu jiraan arday Soomaaliyeed iyo arday ajnabi ah. taa marka waxay farxad gelinaysaa bulshada Soomaaliyeed iyo in barnaamijkan howlwadeenadooda inay horay u sii dhaqaaqaan oo maxaa ku raahdaa barnaamijkan uu yahay barnaamij aad iyo aad u hana qaaday una guuleystay. sidaa darteed marka ardada marka anagoo ku hadlaya magaca post graduate maamul iyo macallin iyo waalidba waxaan u hambaliyeynayaa ardada caawa qalinka bedelatay ama qalinka jibisay. waxaan leeyahay hambali ayaan leeyahay. dardaaranka marka wuxuu yahay waxaan kula dardaarmaynaa post graduate waxay kula dardaarmaysaa waxa la yiraahdo in wadankiina maxaan ku raahdaa ayaa wax u qaadatay u barateen. waxaa la idinka rabaa marka wadankiina inaad u shaqaysaan, nabadgelyada aad ka shaqaysaan, horumarka dalkan aad ka shaqaysaan. waxaan idhaahdaa marka qaarkiis da'da 4 da waa inaad maxaan ku raahdaa xaqiijisaan diintiina inaad anfacdaan kow, dalkiina dadkiisana iyo dantiinaba. dantiina waxay ku jirtaa saddexdaas hore aan u soo sheegay. aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.